madaxweyne xilkaagu wuu dhamaaday wili waa kugu xushmaynaynaa maadaama madaxweyne hore tahay waxaan ka codsanaynaa gabadhaas ku dhahday gabadhaadii aan ku xaquuq ahay soo daa anaga xaquuqda ilmahaaga leeyihiin maanta adiga ilmahaaga waa la iid ayada lama iidin maxay galabsatay taa hooyo Soomaaliyeed inay dhowr bilood xiran tahay waxay ku xiran tahay inay aqoonin hooyo wax barata iyadoo ee dalka wax ku barat aan ognahay duruufaha jira horena shaqo laga heleen bajaaj waxay ka raadaysan naf hooyadeed iyo walaalaheed waxa way xoogsato u ahayd ilmo yaray leedahay dad muslimaan ah yoom maalintii ciida ahayd oo carafada ahayd hooyadeed iyo caruurteeda la ciidi lahayd xabsiga ku jirtaa waxay ugu jirtana ma garanaysa maadaama ayada xoogsato ahayd dhahday madaxweyne gabadhaada iyo aniga isku xaquuqana waana sax xaquuq waa madaxweynaha ha ogaado quraanshada socota in loo haysto qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed asaa u dhaartay kitaabna maray wixii aan ku lahayn dawladda anaga hadaan ka weyn aan soo baxnay aan dhahna xaqeeni aawe aan xaqeeni laana waa waxyaalo aad looga xumaado anaga dad Soomaaliyeed aan dhalinyarada badiyo ku dhamaadeen in xabada dishay madaxweyne mar walbana dawladdaadu waxay dhahdaa amniga la haystaa amniga maxay tahay maanta aniga wadada ma mari kari dhalinyaro Soomaaliyeed markay xaquuqdeeda ka hesho amba aaba Soomaaliyeed amba oday Soomaaliyeed oo dhaho aniga gurigeyga leega dudumiyay saana leeyay dawladii anaga noo afeysantay meesha laga rabay ciidanka booliska amba militariga inay dadka cadawga iyo dhibaatada iyo dadkan moobiladooda inuu horta boolis maxaa loogu talagalay waa inuu hooyooyinka kala celiyo iyo guryaha iyo xaafadaha waxaa loogu talagalay moobilada nagala dhacay jidkan oo la istaagsan inuu noo haay ma ahan maalin walba inuu noo goodiyo maalin walba anaga qoreen kula barobay maalin horena waa arkay taliyihii oo dhahay horta dad loo bootay iyo dadka waxa maanta shirkeena jira saaran aan codsanayna dad Soomaaliyeed aan hooyo Soomaaliyeed aan iidi aniga oo soonfurka waxaan xabsiyan ku iid aan ku jir ciid ma ahayn maanta hooyadaas ayadan inay iidi carafo ay ku iid anaga hooyooyinaana yaana la dhibaateyn wadanka markay dhibaatada dhacay dagaalka dhacay 34 sano waxa dhabarka u riday waa hooyooyin waxa shaqeynaya waa hooyo waxa waaye ciidanka soo barbaarin ilmihii aan soo barbaarin walaalaheen kuwii anaga aan u dhaxnay kuwii nala dhashay kuwii aan dhalnay maanta inay cadow inta noo haystaan hooyooyinka la soo qadiimaad hooyada waxay ka doodaysaa waxay ahayd shidaalka sarakaca Nairobi waa aragteen shidaal yaro inta qaaloobay dadka inta soo baxeen rabshado dhigeen dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay xaqiina ka aamusina hala soo baxo waxaan codsanaynaa halka meel ay cadaaladda ku dambayso aba dalkan isleenaha maxkamadda waxaan ka codsanaynaa bari doole markii la yimaado in gabadhaas noola soo daayo war dalka ayaana laacsiinin war wixii la rabo dadkan ay sameynaa inaan sameynayaan ugu talagalin madaxweyne xilkaagu wuu dhamaaday wili waa kugu xushmaynaynaa maadaama madaxweyne hore tahay waxaan ka codsanaynaa gabadhaas ku dhahday gabadhaadii aan ku xaquuq ahay soo daa anaga xaquuqda ilmahaaga leeyihiin maanta adiga ilmahaaga waa la iid ayada lama iidin maxay galabsatay codsiyay naga tahay ha noola soo daayo gabadhaas hooyada ayadii ubadkeeda hooyadeeda waa yeela ayadaa gabar u ahayd haysay waxa ay u shaqeynaysay wixii ay barata maanta hadayna shaqo ku heli karin oo dawladda dhalinyarada shaqo ay sii karin haday cabteen iyo cabashadooda lagu jujooban yaana nala xirin marwa fertility center waa xarun caafimaad oo soo celisay farxadii iyo rajadii qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ku dhawaa inay kala tagaan dhalmala'aan darteed halkan waxaa lagu daweeyaa dhalmala'aanta waxaa